Waan ku salaamay daawada ku soo dhaw barnaamijkeena taariikhaha. Sidaan wada ognahay Afrika waxay ka kooban tahay 54 dal oo ay aqoonsan tahay qaramada midoobay. Haddaba barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 54 dal caasimadahooga inta macquulka ayaan ka sheegi doonaa. Caasimada koowaad aan ka hadli doonaa waa Addis Ababa. Addis Ababa waa caasimada waddanka Itoobiya, waana magaalada ugu weyn Itoobiya. Waa xarunta African Union, sidoo kale waa xarunta dhaqaalaha Afrika. caasimada labaad ee soo qaadanaa waa Nairobi. Nairobi waa caasimada waddanka Kenya, isla markaana waa magaalada koowaad ee ugu weyn. Caasimada saddexaad aan soo qaadan doonaa waa caasimada Qaahira. Qaahira waa caasimada waddanka Masar ama Egypt. Qaahira waa magaalada koowaad ee ugu weyn qaaradda Afrika, maadaama ay ku nool yihiin dad gaadhaya 20 milyan oo qof. caasimada afraad ee soo qaadan doonaa waa caasimada Accra, waana caasimada waddanka Ghana. caasimadan waxaa ku nool dad gaadhaya population-keegu waa 4 milyan iyo badh, waana magaalada 13aad ee ugu weyn Afrika. magaalada ku xigta ee soo qaadan doonaa waa Abuja. Abuja waa caasimada waddanka Nigeria. haddaba daawaday sidoo kale Nigeria caasimadan waxa ay u soo guursay 1991 oo caasimadii hore 1991 wixii ka horreeyay waxay ahayd magaalada Lagos. Lagos waxay ku jirtaa magaalooyinka ugu waaweyn Afrika, waxaana ku nool dad gaadhaya 17 milyan. Kampala waa caasimada waddanka Uganda. waa magaalada ugu weyn Kampala, maadaama ay ku nool yihiin 6.7 milyan oo qof. caasimada kale soo qaadan doona waa Cape Town. Cape Town waa caasimada waddanka Koonfurta Afrika, waana caasimadaha ugu dhismaha quruxda badan maadaama koobka adduunka lagu qabtay 2012. caasimadan ku xigta soo qaadan doona waa Khartoum. Khartoum waa caasimada waddanka Suudaan. Khartoum waa caasimadaha ugu quruxda badan Afrika maadaama uu dhex maro webiga Niilku, isla markaana uu kala qaybiyo laba. caasimada ku xigta soo qaadan doona waa Asmara. Asmara waa caasimada waddanka Eritrea, isla markaana magaalada ugu weyn. macluumaad badan lagama hayo waddankani sababtoo ah waxaa haysta military, isla markaana ma ahin macquul inaad ka heshid warar aad u badan. caasimada ku xigta kala soo qaadanaa waa caasimada waddanka Rwanda ee Kigali. Kigali waa caasimadaha aadka ugu quruxda badan leh, isla markaana lagu naanayso Yurubta Afrika. Kigali waa magaalada ugu weyn waddanka Rwanda, waana magaalo aad u qurux badan sida aad ka aragtid muuqaalada qaarkood. Kigali waxaa lagu xasuustaa xasuuqii ka dhacay waddanka Rwanda ee ay islaayeen qoomiyadaha Hutuga iyo Tutsiga. isla markaa Kigali waxaa ku dhex yaala madxafka ugu weyn adduunka ee lagu kaydiyo qolfoofaha dadka dhintay si loogu xasuusto wixii ka dhacay waddanka Rwanda. daawad waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. maalmaha soo socda waxaan ku soo qaadan doonaa magaalooyin kale oo caan oo Afrika ku yaala.